doonaa meel ay istaagayaan haba yaraatee ma lahan waa nafbixi ugu dambeeyay ku jiraan khawaarijtu waa kana meel kastoo aan tagno xoogga dalka uma babac dhigi karaan sida daraadeed shacabka Soomaaliyeed waxaan ku dhiirigelinaynaa inay xoogga dalka ay la shaqeeyaan inta yartaa wili cabsida ay ku harsan tahay cabsida iska bixiyaan sida arkaysaan goodkoodii iyo rashinkoodii iyo wax walba ka carareen waa kuwana khawaarij insha Allah wax tabaro u haray markan haba yaraadaane ma lahan shaagla laga baqay wallahi billahi inay ragiyihiin ilaahu ajri xasanaadin kasi waa lagu lisayaa meel kasta laga sii saarayaa waa budbud duleedkeeda waxaa qarka loo saaran yahay in la qabto meeshii la dhihi jiray diri in la qabto iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa oo dhan coos weyne iyo waxaas iyo shaladii hore lagu soo galgasha ceelbuur qarkiisa la isla saaran yahay go'aamadii ugu dambeeyay oo khawaarijta ka soo baxay waxay isku raaceen inaysan difaaci karin ceelbuur aysan difaaci karin dhulka hoose oo galgaduud la yiraahdo dhan oo isaga baxaan ay aadaan mudug meesha la yiraahdo shabeelow waa kuwa xaqiijinaya boqolkiiba boqol aniga kuwa xaqiijinaya xanta iyo xuraanka aan ka dhaxlay nimankaas waxay soo gudbiyeen inaysan difaaci karin dhulka la yiraahdo galgaduud hal meel oo kamid ah inaysan difaaci karin ciidanka kuwa galhareeri jira ay soo cararaan kuwa ceelbuur jira ay soo cararaan shabeelowna waa loola carara kaba ku tukada iyo cali dheera xaladii hore loola carara barnaamijkan sheer garee oo meel walbaba geli oo bulshada la wadaag oo ciidamada dhiira geli oo farxadda aan faraxsanahay nala farax haddaa khawaarijta necab tahay oo dadka lagu dulqaadaya aad tahay oo ninka ay dul fadhido oo isticmaali jirta aad tahay wey barnaamijkan meel walbaba geli guulaysanay ilaahay subxaanahu wa tacaalaana waana guuleeyey ilaahayna wuxuu noo soo diray madaxweyne fahmay in cadow uu dul fadhiyo ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba 90 ay dul fadhiyaan in yar ay ka badbaaday oo ilaahay ka badbaadiyay maahan inta kale ay dul fadhiyaan Soomaali oo lagu qabanaysa madaxweynaha way jirtaa dagaalka oo maanta ku jiro runta iyo xaqiiqda marka isla aadno ilaahayna aan ka cabsano way jirtaa Soomaali rabta inay khawaarijtu meesha joogto oo ku shaqaysata lacagna ay kala qaataan dhaqaalana ay kala qaataan runta iyo xaqiiqda markaan kala hadlo ninkii siyaasadda ku soo biiro oo fahansanayn khawaarijtu meel ka jirto oo wareersanaa waxa fahansiiya oqaashtii iyo dhaqankii meesha uu ugu yimid oo reerka haga jirtay ayaa waxay yiraahdaan faa'iidadan iyo faa'iidadan iyo faa'iidadan aan ku qabnaa ee aan naga taaban nimanka nin walba oo siyaasiyan wuxuu ku shaqeeyaa maskaxda oqaashiisa waxaa hubaala soomada Soomaaliyeed ninaan waxba baran oo dhaqan la yiraahdo oo madax adag oo dadka iska cuna inuu ummadda Soomaaliyeed iska hor keenay masiirkeedana mugdi ku shubay hubaala waxa ay ummadda Soomaaliyeed ay ka hagaagi leedahay waa oday dhaqan oo cilmi iyo maadiba soo baran sida geedka loo hoos fariistay kaliya yaqaan wuxuuna u sheegaa nin kastoo siyaasadda ku soo biira in halkaan faa'iido ugu jirto halkaan faa'iido ugu jirin ninka siyaasiga ama maamul goboleedka madaxweynaha ka noqda ka bacdi markuu ku soo biiro siyaasadda ayuu ogaadaa khawaarijta faa'iidada u leedahay kuwa badan oo madaxweyneyaalana way fahansan yihiin faa'iidada u leedahay iyo beesha say ula noolaan jirtay say ula dhaqmi jirtay maantay ilaahay wuxuu kasbay kaasaa Hirshabeelle iyo Galmudug in laga xoreynayo oo ay ku soo hareen boqolkiiba 10 ay ku soo hareen guushaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta noo geliyay madaxweyne naga naxayana ilaahay noo keenay guulaysanay ilaahay baana na guuleeyay